السلام عليكم dhegeyste la soco xigmadii afaraad xushmee dadka uurka ka nacab waa kuwa kaliya u maleynaya inaad cid walba ka wanaagsan tahay adiga nafsad ahaantaada saxiix dadka qaar ayaa naftaada u limin doonin iyagoo isku dayaya inay dadka kale soo jiitaan samee waxaad jeceshahay mar waliba haddii aadan weligaa isku dayin weligaa ma ogaan doontid xaqiiqda dhabta ah waxa ay tahay gabdhuhu waa makhluuqaad qosol badan way necab yihiin markaad weydiiso da'dooda laakiin way ku dilayaan haddii aad ilowdo xilliga iyaga ee dhashteen ogow waad dhegaysataa sheekooyinka shisheeyaha kale waxaadna maskax ahaan ka dhiibataa fikirkaaga weligaa ha quusan adigoo aan helin qofka aad rabto oo naftaada doonayso haddii kale noloshaada waa qabyo waqtiga ugu xiisaha leh ee noloshu tahay waa markii qofka aan la filaynin naftaada ku soo biiro wanaag ma ahan inaad keligaa is-xukumi karto sababtoo ah ma tihid qof ogaan kara biri wixii dhacayo alla mooyaane qofka wanaagsan marnaba isma cajabiyo qofka alla ku xiranna marnaba isma qaadqaado oo isla weyni kuma jirto xanaaqu qalbigu waxyeeleeyaa laakiin qosolka iyo farxaddu qalbigay sifeeyaan markii wax walba la sheego oo la sameeyo cimilada iyo jacaylku waa labada shay oo aan weligood hubin karin jacaylku ma ahan inta aad dhahdo waan ku jeclahay ee waa inta aad caddayn karto inay runkaa tahay adiga la soco xigmadii shanaad